kulanti wanaagsan ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeena tixanaha inoo ahaa sheekadan ciwaankeedu waa dardaaran aabe waxa la yiri beri buu oday daahi bukooday ama jiraday waxaana doonayay inuu caruurtiisa uu la dardaarmo wuxuu isugu yeeray 10 wiil oo uu dhalay dhammaan wiilashii uu dhalay ayaa waxa ay ku soo jiifteen salligii uu ku fadhiyay ayaga oo diyaar u ah inay dhageystaan weeraha uu aabahood oran doono si uu wax u tusaaleeyo buu ka codsaday inuu mid kasta oo kamid ah soo qaato ul yar kolkii ay ulihii soo qaateen ayuu aabihii soo garab fadhiisteen curadkiisii oo gees ka fadhiyay ayuu ku yiri aabo usha aad sidato isku day inaad jebiso si yar oo fudud ayuu wiilkii usha u kala jebiyay waxa uu haddana ka codsaday inay isku xiraan sagaalkii ulood ee haray mar labaad ayaa waxa uu wiilkiisii curadka ahaa yiri aabo bal iminka isku day inaad jebiso sagaalkan ulood ee aad isku xiran wiilkii way ku adkaatay inuu jebiyo ulihii si kasta uu isku dayay odaygii ayaa isaga oo la hadlayay inamadiisii waxa uu ku yiri aabo wadajirka iyo midnimadu waa sida sagaalkaas ulood kala tagga iyo tafaraaruquna waa sida ushii kaliga ahayd haddii aad kali socotaan oo midba gees u jeesto nacabkiisuna si yar oo fudud buu wax idin yeeli haddii si aad isku duubnaataan oo aad meel ka soo wada jeesataan guul iyo karti ayay idin horseedi doontaa sheekadeeni maanta oo xiise gooniya lahaydna waa inaga intaa boggaan falow inuu dhaha muuqaalkaana share gareeya saaxiibayaal soo dhawaada mahadsanidin